السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتو عن وناكسن داودياش قيمها بدنا كحري جنال كيغا ما أنتي معلنكي مرنا وريه موضوع رب إنه كهذا معها موضوع قصي أما عشرة جرمال كان يوتيوب كسوق جرينجنا أما واحد كانت وحان ربا إنا كهالله شيء أن إنده لقى سابنكن وحقيقة ده أو ركض لنيرة أو ديال يان شيء سنة وحنكون شيء سنة حالة قلقل كيمت هودا الصومالية هودا الصومالية سال سعوتين با ديارديه مري مالميه قدام بيسي waxaa dhacday ismaandaaf culus oo amara la siinayay ay kala siinayeen muqdisho iyo hargeysa maxay tahay micnaheedu waxay tahay in mataqaanaa Somaliland ay heshay qalab casri ah oo si toos ah ay ugu xiriireyso hawada diyaaradaha maraya diyaarad walba oo hawada marayso Somaliland waxay hadda awood u leedahay inay la xiriirto si la mid ah xarunta muqdisho ee Soomaaliya haddaba su'aasha isweydiinta mudana waxay tahay war xaqiiqda maxaa la iskaga indhasaabiyaa hirdanka ka socda hawada Soomaaliya waxay saameyn ku yeelan doontaa qof walba oo Soomaaliya meel walba joogto waayo kan jooga America iyo kan jooga Yurub dadkiisii iyo dalkiisii kama maarmo inuu u dhoofo rabaa mar haddii Somaliland ay bilowday inay hawada qalqal geliso Soomaaliyana ay iska indhatireyso dawladda Soomaaliya iska indhatireyso arrintaas aysan kala heshiineenin aysan dheheenin warkaaliye miiska wada hadalka aanu fadhiisano oo wada hadalno haddii san dheheenin oo saan ku socoto hay'adda ECAO ee qaabilsan arrimahan waxay awood u leedahay inay tiraahdo hawada Soomaaliya ma ahan amni laga bilaabo saacadan wax diyaarad ah oo Soomaaliya dusheeda u duuli karo ma jirto toos waxay marka arrinta u saameynay oo nafti iyo dhaqaalihi u saameynay oo wax walba u saameynay oo amniga u saameynay dhammaan geyiga Soomaaliyeed oo dhan min raas caseer ilaa raas gaboone waqooyi iyo bari iyo koonfur intaba haddaba intaysan dhicin maxaa dawladda la gudboon dawladda Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh maxaa la gudboon waxaa la gudboon war nimankan awoodooda lama xaqiiri karo awooday la soo baxeen inti siisaba si awoodda kula yimaadeen Somaliland maamul waaye maamul goboleedyadu ka mid yihiin sheekadaas inta dhiga nimanka awooday la soo baxeen qofka markuu awood la soo baxo waa inaad heeleysaa ilaa xoog Soomaali kuma kala xoog laguma kala raayo xoog haddii lagu kala raaynayo xoog wax la isku maamulayo khaatumi state waxay ka mid ahaan lahayd Somaliland oo Somaliland ya xukumi leh waxa intaas marka tusaale kugu filan cid kale ku qaban karta ma jirto maxaa la gudboon marka waxaa la gudboon dawladda Soomaaliya wada hadal dhab ah iyo wada xaajood dhab ah inay la yeelato Somaliland hogaamiyashooda ragga Somaliland ka arrimiya in inta wacdo miiska wada hadalka soo fadhiisato Djibouti iyo meelish la iskugu imaado ee la yiraahdo Somaliland markaan alamtara waa soo dhaafteen maxaanu noo dan ah san macquul maahan waayo diyaaradda Qatar Airways iyo diyaaradda Ethiopia Airlines waa labada diyaaradood ugu badan ee Soomaaliya mataqaana ay u soo dhoofo waay marka laga reebo diyaaradahan hadda fly Dubai gaan iyo mardhow waxaan Kenya Airways waxa hadda bilaabeen laakiin Qatar Airways iyo Ethiopian Airways iyo waliba Turkish Airlines xil anaga aan u baahnayn inay waddanka ka howlgali jireen in duulimaadkooda marka uu Qatar galo oo duulimaadyadii la geliyo qalqal يعني waxay keenaysaa in hawada Soomaaliya laga guuro dawladda Xasan Sheekh qaybta wasaaradda socdaalka qaybaha hawada qaabilsan waa inay la xiriiraan xiriir toos aan gabasho lahayn waa in la sameeyo Somaliland waa in laga wada hadlaa arrinkan la xaliyaa haddaan sida ugu dhaqsiyaha badan lagu xalin uqsum billahi alazim ilaahay baan ku dhaartay oo hay'adda ICAO ee go'aan gaarto hawada Soomaaliya lama mari karo in la soo celiyo oo hawadeena dib loo furo ayay waxay qaadanaysaa hirdan iyo dagaal kale taadara war waxaan nahay dal iyo dawlad soo kabanaya intaas 30 sano soo dala dhacay marxalad soo maraayay maanta markii ay ugu rooneedana maanta markii ugu rooneed markay marayso Somaliland inay hawadii dawladda ay ku qabsato maxaa xal ah wax walba xalkeed in la raadiyo rabaa waxa xal ah dawladda inaysan iska indha tirin
awoodna aysan isbidin kaleete ee Somaliland la hadasho haddii Somaliland aysan la hadal xaaladan aysan ku socoto wax aan la mahdin doonin qof walba Soomaaliya ee meel walba joogana aan la mahdin doonin ayaa soo bixi doona waxaan ugu baaqayaa dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa waxgaradka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed meel walba joogaan arrintaas in si wada jira looga dhiidhiyo dawladda loogu baaqo inay Somaliland arrintan qalqalqalinta ay tahay mid saameyn Soomaali ku wada yeelanayso meel loogu soo wada jeesto lagana wada xaajoodo haddii kaleete ولا كان أمريكا جوجو ولا كان إنجليز كجوجو ولا كان يوروب تكلا جوجو ولا كان ماشي جوجو كل قف والبوس الصومالي سامعني قف والبوس الصومالي ميلو بجوجو سامعني بلا توفيق